iyadoo dadka ku dhaqan magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ay u dhag taagayeen natiijada doorashooyinka golaha deegaanka ee degmada Boorama isla markaasina la wada sugayay ayaa maanta gudoomiyaha komishanka ee degmadani Boorama Cabdilaahi Cabdi Warsame oo ku dhawaaqay natiijooyinka doorashooyinka golaha deegaanka ee degmada Boorama kuwaasi oo ka kooban 22 xubnood isla markaasina ka soo kala baxay asxaabta iyo ururada siyaasadeed ee tartamayay gudoomiyaha komishanka ee degmada Boorama Cabdilaahi Cabdi Warsame ayaa isagoo faahfaahinaya arrimahaasi waxa kamid ah hadaladiisii intaas ka bacdi xisbiyadu waxay kala heleen xisbiga ummaddu wuxuu helay 3 xisbiga u cidna wuxuu helay 3 xisbiga kulmiyana wuxuu helay 7 xisbiga qarsana wuxuu helay 1 xisbiga raisna wuxuu helay 2 xisbiga wadanina wuxuu helay 4 xisbiga xaqsoorna 1 buu helay dhinaca kale waxa dareenkooda wax ka weydiinay qaar ka mid ah xildhibaanadii ku guuleystay xubinimada golaha deegaanka ee degmada Boorama waxayna dareenkooda ku cabireen sida tan alxamdulillaah ilaahay baa mahad leh magacaygu waa maxamed faarax waxaan ahay xildhibaanada ku guuleystay golaha deegaanka ee degmada Boorama waxaan ka soo baxay ururka ummadda waxaan leeyahay cid kasta oo na soo taageertay oo na soo garab gashay wad mahadsantiin baan u leenahay mahad celin baan ugu mahad celinaynaa mar walba waxaan leenahay mar walba oo ni garab taaganahay anaguna tiini wad gudateena taayadii ba hadhay bulshada reer Boorama waxaan leenahay wixii aad naga filayseen insha Allah wad naga heli doontaan bismillahir rahmaanir rahiim alxamdulillah magacaygu waa Axmed Maxamed Adoosh kana tirsanaa murashax ka tirsanaa xisbiga Dalsan kuna soo baxay hadda kaalinta koobaad ee xisbiga Dalsan runtii waxaan maanta halkan hambalyo uga diraya guud ahaan bulshooyinka reer Awdal yar iyo weyn waxaan aad iyo aad u salaamayaa dhammaan taageerayaashaydii ee gudaha iyo dibadda meel kasta ay joogaanba aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa runtii intii aan hawsha ku jirnay na soo garab taagnaa hadday tahay maxay daanay taageero af gacan iyo adduunba intii nagu taageeraysay ee halka maanta aan taaganayna soo gaarsiiyay ayaan runtii mahad celinayaa magacayga bismillahir rahmaanir rahiim waxaan halkan uga hambalyeynayaa dhammaan dadweynaha reer Boorama kuwii codeeyay iyo kuwii aanan codeynba waxaan ilaahay ugu rajaynayaa inuu ilaahay ii fududeeyo wixii aan u ballan qaaday waqtigii campaign-ka bismillahir rahmaanir rahiim magacayga Saciid Musaxiish ilaahay baa mahad marka koobaad noo suurtageliyay in aan dadaalkii galnay nagu guuleeyay horta ilaahay baa mahad iska leh mar labaad waxaan u mahadnaqayaa shacbiga degmada Boorama sida maanta rajada la noo doortay si kastaba ahaatee natiijada doorashooyinka golaha deegaanka ee degmada Boorama ayaa ahayd mid aad u xiiso badan isla markaasina ay dadka ku dhaqan xarunta gobolka Awdal ee magaaladani Boorama ay wada sugayeen kadib markii lagu dhawaaqay 3 degmo ee kale ee uu ka kooban yahay gobolkani Awdal Qadar Maxamed Xasan Laba Qaydle TV-ga caalamiga ee Somali Sat magaalada Boorama